kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah mucaaradka Somaliland oo ku dhawaaqay go'aamo ka dhana Muuse Biixi oo ay sheegeen inaysan madaxweyne u aqoonsanayn kadib markii uu dhamaaday muddaxileedkiisa maalinimadii shalayto oo taariikhda ay ku beegnayd 13 November xaaladda guud ee maamulka Somaliland kadib go'aanka ka soo baxay mucaaradka iyo booliiska Somaliland oo ballan qaaday inay ilaalin doonaan nabadgelyada qof kasta oo ku nool Somaliland kuwii xadgudub sameeyana sharciga lala tiigsan doono madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegeen khasaare ay ku gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab dagaal ay kula galeen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal mucaaradka Somaliland ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba kalsoonidii ay kala noqdeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddaxileedkiisa u dhamaaday musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo warbaahinta u akhriyay go'aamada ay gaareen mucaaradka kadib markii uu dhamaaday 5 sano ee la doortay madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in hadda laga bilaabo xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayo Muuse Biixi aysan u aqoonsanayn in ay tahay xukuumad sharci ah oo ay tahay xukuumad sharci darro ku dhisan waxa uu sheegay in axsaabta mucaaradka ay u aqoonsan yihiin jadwalkii doorashada ay soo saareen guddiga doorashooyinka Somaliland isla markaasina ay diyaar u yihiin inay galaan doorashooyinka oo ay ugu soo horeyso tan madaxtooyada mucaaradka Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in ay ka soo horjoodaan doorasho kasta oo aan heshiis lagu ahayn iyadoo dhinaca kale ay sheegeen inay diyaar u yihiin wada hadal kasta oo lagu gaarayo heshiis doorasho marka laga yimaado kalsooni kala noqoshada xukuumadda Somaliland waxa uu sheegay in mucaaradka ay aqoonsan yihiin sharcinimada golayaasha sharci dejinta dawladaha hoose iyo waliba maamulka adeega dadweynaha Cirro ayaa shacabka ugu baaqay in nabadda ay ku dadaalaan ayna isku duubnaadaan laakiin si aanay aqbalin wixii sharci darro ah ee loola yimaado Somaliland waxay gashay marxalad hor leh waxa dhamaaday maanta muddaxileedkii madaxweyne Muuse Biixi isagoo ku guul daraystay inuu doorasho qabto muddaxileedka loo sameeyay Muuse Biixi ma waafaqsanayn dastuurka jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa 83 faqradiisa 5 xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 91 2021 qodobkiisa 6 faqradiisa 4 mana ay waafaqsanayn jadwalka komishanka doorashooyinka qaranka mana ahayn muddo kordhin la isla ogol yahay talana laga weydiiyay axsaabta qaranka muddo kordhintaas axsaabta mucaaradku way diideen oo ma aqbalin sababahan soo sheegay awgeed waxa kale oo shacbigu maraka yahay in Muuse diiday dhammaan ergooyinkiisa xilqaamay shacbigii mudaharaadka silmiga u soo baxay si ay dareenkooda u muujiyaan qaar uu lay qaarna uu dhaawacay qaarna xabsiyadu ku guray waxayna maragmay doona joogteynta xariga saxafiyiinta iyo dhaga ka furaysiga xukuumadda ee hay'adaha xuquuqul insaanka axsaabta mucaaradka ah waxa u muuqda in xukuumadda cimrigeedu dhamaaday dalka qasgelisay dawladnimadii hagaastay shacbiguna dayacan yahay oo baahi iyo xanuun dhakhtarada la daadsan yihiin
waxaana muuqda warwareegga doorasho diidka ah ee rajiimka Muuse Biixi hogaaminayo oo maanta muddaxileedkiisii sharciga ahaa ku egyahay si loo difaaco sharciyadda waddanka wadajirka iyo wax wada lahaanshaha ummadda dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodu waxay go'aan ku gaadheen qodobadan soo socda kow maanta laga bilaabo Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa koowaad ee dastuurka si socoshada xukunkiisu waxay ku suntan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan Muuse Biixi waxaanu aqoonsanahay madaxweynihii xilku ka dhamaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacbiga iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye axsaabta mucaaradka ah waxay aqoonsan yihiin jadwalka doorashooyinka ee komishanka doorashooyinka qaranka dejiyey waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ugu soo horeyso doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wada hadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka doorasho aan sharci ahayn oo aan lagu heshiinna axsaabta mucaaradka ah way ka soo horjeedaan mana aqbalayaan xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dawladda ee sharciga ku fadhiya golaha baarlamaanka maxkamadda dawladaha hoose iyo maamulka adeegga dadweynaha bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhamaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa uu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyay guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ahna diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina xisbiyada mucaaradka ah waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo kaliya si waafaqsan qodobka 123 faqradiisa koowaad ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn xisbiyada mucaaradka ah waxay ku wargelinayaan taageerayaashooda in hoggaanka iyo saraakiisha xisbiyadu si dhow la socon doonaan xaaladda waddanku marayo isla markaana si joogto ah u soo wargelin doonaan oo lana socodsiin doonaan taageerayaasha tallaabooyinka xiga ee aynu qaadi doonno marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas'uuliyaddeeda waxa iska leh madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday kadib go'aanadaasi ka soo baxay mucaaradka Somaliland waxaa war soo saaray taliska ciidanka booliiska Somaliland ayaa ballan qaaday nabadgelyada ay ilaalin doonaan iyadoo sidoo kale ay xaqiijiyeen inaysan aqbali doonin dadka in sharci darro ay ku dhaqmaan ama banaanbaxyo sharci darro la qabto taliyaha ciidanka booliiska Somaliland sareeya gaas Maxamed Aadan oo war saxaafadeed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in booliiska mas'uuliyadeedu ay tahay inay ilaaliyaan
xuquuqda hantida iyo weliba nabadgelyada qof walba oo shacabka Somaliland ka mid ah ama qof walba oo ku nool deegaanada Somaliland. waxa uu sheegay booliiska in kaalintooda ay ka soo bixi doonaan isagoo tilmaamay in shacabka canshuurta ay bixiyaan mishaar ahaan ay u qaataan ciidamada sidaasi darteedna xaq ay ku tahay booliiska in nabadgelyada ay ilaaliyaan. inkastoo oo uusan carabaabin haddana waxa uu sheegay mas'uul kasta oo isku dayo in qalqal amni uu abuuro ama uu dhibaateeyo dadweynaha in sharciga lala tiigsan doono oo booliiska ay iska hor iman doonaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaashaanle sare Mubaarak Cabdilqani Muuse u magacaabay taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha oo magacaabistan ku saleeyay sharciga dhismaha ciidanka xoogga dalka ayaa faray taliyaha cusub inuu si ambaqaado qorshayaasha qaran ee dib u dhiska ciidamada badda Soomaaliyeed sida lagu sheegay dikreeta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xeerka madaxweynaha oo waafaqsan qodobka 8aad iyo 9aad ee dastuurka uu ku dhaqan galay faafinta rasmiga ah. taliyihii hore ee ciidamada badda Generaal Cabdilxamiid Maxamed Dirir oo khilaaf adag uu soo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii ugu dambeysay waxa shaqo joojin ku sameeyay madaxweynihii hore ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 27 Diseembar 2021 ayuu Farmaajo amray taliyaha xoogga inuu shaqada ka joojiyo taliyihii ciidanka badda Generaal Cabdilxamiid Maxamed Dirir xilligaasi oo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Rooble uu eedeyn culus u mariyay warbaahinta. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Cabdi Cagweyn oo u dhow deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, waxaana la soo warinayaa in dagaalkaasi khasaaro uu ka dhashay. ciidamada dawladda Soomaaliya oo garabsanaya kuwa deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab ku weeraray saacadihii la soo dhaafay deegaankaasi, waxaana halkaasi looga dilay dagaalamayaal badan sida ay sheegeen ciidanka. kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay maalmihii la soo dhaafay fariisimo ay ka samaysteen deegaankaasi kadib markii dhanka bari ay uga soo tallaabeen webiga Shabeelle. dadka ku nool deegaanada lagu dagaalamay ayaa sheegay in tobaneeyo shabaab ah meydadkooda lagu arkayay deegaanka, balse ma caddo tirada rasmiga ah ee khasaaraha kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo warbaahinta u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen fariisimihii ay ka samaysteen deegaankaasi Cabdi Cagweyn ayaa sheegay in kooxda halkaasi lagu jabiyay. sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay deegaano kale oo dhinaca jiinka webiga dhaco inay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan kooxdaasi. kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalamayso deegaanada dhaca jiinka webiga Shabeelle ayaa doomo uga soo gudbaa webiga iyagoo fariisimo waaweynna ku leh dhanka deegaanka galbeed ee jiinka webiga. intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.